السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ku soo dhawaada sheeko cusub oo taxana isla markaana la magac baxday boqortooyadii Dhurwaaga xilliga lagu jiri waxa uu haguga dabayaaqadiisii qoys reer guuraaya ayaa waxay degeen goob keema dhexdeeda meel kastana waxa kaga wareegsanaa dhir waaweyn oo aan waxba laga arkayn ayaantaas waxa daayay roobkii gugaynihii ugu dambeeyay reerka uu ilaahay xoolo badan ku manaystay waxa uu dhalay tiro kamid ah arigii u xareysnaa in kalena waxa laga rajo qabay inuu dhawaan dhali doono dadka ciidanka ah intooda badan waxay ahaayeen kuray waxayna ka tirsanaayeen xirada geela oo meel taas u fogaan u jirin guriga waxaase hawsha shaqada loo diri jiray Diiriye oo ahaa 8 tir reerkana gacan yare u ahaa waxaana raaci jirtay walaashii Dahabo oo 2 sano ka yareeyay ahaan iyadoo ay sida arrimuhu u socdaan ayaa maalin maalmaha kamid ah waxa lumay maqashii qayb badan oo kamid ah Diiriyana waxa uu maqnaashahooda dareemay gabalgaab ay adeedu baalka godka la gashay maalinta walaashiisa yareed uu ka tagay oo lama socoto waxaana soo wajahday cabsi daran oo ka qabo aabihii Dalmar oo ahaa nin qaylo badan oo kulul Diiriye inta uu maqashii xerada keenay intii gacantiisa ku jirtay ayuu u laabtay doonistay intii goosatay hase ahaatee isla markiiba qoraxdii ayaa dhacday waana gudcur cirka daruuro culus isku gadaameen wax iftiinana ma wato dhulkana aqoon buuran uma lahayn baqdin daranna way haysaa laakiin waxa ugu daran tan uu ka qabo aabihii Dalmar in doora ayuu socday wax maqalana muu helin markaas ayuu go'aansaday inuu dib ugu noqdo gurigoodii balse waxa uu garan waayay dhinaca ka xiga gurigooda waxa uu bilaabay inuu hadda afka meel saaro dhulkuna meel banaan ma leh oo kaynaya ku wareegsan Diiriye xaafadoodii tuhum baa galay goor la gaari fiidkii waxa la dareemay maqnaanshihiisa iyo maqashii ay qayb badan maqan tahay waxa sala fishay inuu iman doono ama soo dhow yahay markii ay dabeeshu soo dhacday fiid dambana ay tahay ay Diiriye hooyadii dayax warwar badan muujisay markaas ayuu odaygii reerku dhalinyaro geel soo xaray sidaal badanina hayo u diray wiilkii maqnaa oo yiri waar wiilkii Diiriye lama hayo ordo raadiye galabta ayay cid ugu wardambeysay habeenkii cid kastoo raadin kareysay waxa loo baxay la soo wada helay isaga iyo baraarkii nasiib darrase waxa goor habeen barkii ah la soo helay maqashii oo in badan dacaw leysay gaag yar oo ka soo haray Diiriye markaas socod dheerayna uu ku jiraa baqdin aan la cabiri karin way haysaa wuxuu socdaba wuxuu hadba geed ka leexdaba waxay qodax mudaba tan iyo heela kama laha oo waxa uu raadinayaa gurigoodii jiha uu ku abaaro haatan xoolo raadin hawli way dhaaftay oo isaga laftiisii baaba aan bada goor habeenkii laba isku rogay ayaa waxa bilaamay inuu soo horo roob dhaxan wata oo qabow markaas ayuu raadiyay meel uu kaga dhuunto ribcaha roobka waxa uu helay meel taag ah oo god afweyn leh ka soo jeedo Diiriye waxa uu istaagay afaafkii hore ee godka roobkuna wuu sii badanayay abaarka bacdina waxaba meeshii soo abaaray raxan Dhurwaaye ah oo isla socda qaybtii koobaad ee sheekadana maanta intaas ayay ku eg tahay la soco qaybaha dambe subscribe na star channel-kan